haddaanu bahda Sama TV xafladan sida loo maamusay waxa ka soo qayb galay Ali oo isagu ka mid ah diasporada Puntland haatanna ku nool North America gaar ahaan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota Ali bal ku soo dhawow Sama TV وما سنتهي نعول سمتيفين عبد الماتين bal ugu horeyn Ali waxaan rabaa maadaama aad xafladii aad joogto bal sidee baad u aragtaa booqashada ra'iisul wasaarihii hore oo magaalada Minneapolis runtii anagu reer Minnesota ahaan dhaqan baanu leenahay dhaqankeena waxa weeye markii qof madaxa ama qof xil maartay mudan uu magaaladeena yimaado waa soo dhaweynaa marka dhaqankaasi caadadaasna kama tagayno farmaajana aad baan maartay u soo dhaweynaynaa magaaladeena ugu soo dhaweynaynaa xafladan loo qabtayna waxaan u arkaa maaragtay mid uu istaahilo oo uu shaqaystay waayo wuxuu ahaa prime ministerkii ugu horeeyay oo runtii dawladda Soomaalida dadka Soomaaliyeed ka gadanta oo qancisa maaragtay golihiisa wasiirada quality-gooda iyo aqoontooda iyo markii tayadooda la eego aad maaragtay looga helay taasaana keentay in dadku u riyaaqo oo jeclaystaan maaragtay wax qabadkiisa iyo waxyaabihiisa Ali muhiimad intee leeg ayay u leedahay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota runtii marka laga eego dhinaca unity-ga mar walba oo dadka Soomaaliyeed la isku keenayo inay wada noolaadaan qarannimadooda soo celiyaan sharaftooda soo celiyaan karaamadooda soo celiyaan waa wax important iyo muhiim ah marka dhinacaas marka laga eego aad iyo aad bay muhiimad u leedahay Ali adigu waxa ka tirsan tahay jaaliyadda Puntland ee gobolka Minnesota majaaliyad ahaan gobolka Puntland baa uga soo qayb gashay mase gobolka Minnesota ahaan baad uga soo qayb gashay waxaan uga soo qayb galay Soomaali ahaan waxaan uga soo qayb galay reer Minnesota ahaan midda kale siyaasadda iyo mar walba way kala duwan yihiin iyo waxa Soomaalinimada dadka ka dhaxeeya taas mar walba waa muqadas Soomaalinimadu inay jirto dadku inay israacsanaadaan unity-gu inuu jiro fikirka iyo siyaasadda waa lagu kala duwanaan karaa oo wax maartay meesha ku jira wax faahfaahina ma ka haysaa sababta uu ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya uu u yimid gobolka oo u soo booqday wax tafaasiil ma naga siin kartaa runtii marka laga eego dhinaca grassroots gobolkan dad badan oo supporters ayuu ku lahaa farmaajo taasaa keentay inuu yimaado oo u mahad celiyo dadkii la soo shaqeeyay muddadii uu xilka hayay midda kale wuxuu ka faa'iideysanayaa fursadda dhibaatada jirta abaaraha inuu abaarihii maaragtay awareness iyo in lacag loo rays gareeyo uu sameeyo waxaana socdaalkiisa ku weeliya sidaa la socono Cabdikariin oo ah wasiirka hore warfaafinta haddana ah maaragtay senior advisor oo madaxweynaha Ali ugu dambeyntii ummadda Soomaaliyeed maxaad faraysaa abaarna waa jirtaa ummadda Soomaaliyeed wax kale ma farayo wixii aan bariyahan oo dhan ka shaqeynay oo ahayd in abaarta loo gurmado loo kaco iyo in unity-ga iyo wadajirka Soomaalinimada laga shaqeeyo oo wixii khilaaf iyo difference keenayana laga gudbo aad iyo aad baad u mahadsantahay Ali daawadayaalkaas wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo isagu ku nool gobolka Minnesota kana soo qayb galay xafladii ra'iisul wasaaraha